السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك كحرن سومالي هرمركات برايس أكشن تريدين أد بانيدي سلامية سلام كذب أسبوعا وأسبوع أفراد إن شاء الله وحنكهن دونا سوق أنتو إلا هالكو غاري كرو أصحاب فربضنا waxay soo weydiiyeen forex horta forex ma la isku haleyn karaa forex waa la isku haleyn karaa waa meel lacag laga sameeyo laakiin waa misana sidaas ay tahay waa meel aad risk u badan laakiin marka hore waxaa loo baahan yahay inaad baratid ayaa loo baahan yahay juhdi dadaal badan aad geliso buugaag badan aad akhriso marka lacag waa laga sameeyaa laakiin dhedhel lacag loogama sameeyo haddii ay fududahay oo lacag laga sameyn karo oo si fudud lacag loogaga sameyn karo dunida lagumaba arkeenba qof faqiir ah marka juhdi dadaal ay u baahan tahay qof walba oo lacag sameeyey dunidan joogo wuxuu bixiyey juhdi dadaal aad fara badan u bixiyey marka insha allah juhdi dadaal fara badan ayuu u baahan yahay forex trading inaad wax badan baarto inaad wax badan akhriso inaad wax badan training aad samayso marka insha allah sidaa daraaddeed maanta cashirkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa forex trading suuqa halkee ayaa laga yaabaa inuu gaaro maalmaha soo socda isbuuca soo socda insha allah waxaan lacagta ugu horeysa ka hadli doono waa euro USD sidaad u jeediin waxay joogtaa meel aad xasaasi u ah waxay joogtaa support waxay joogtaa resistance line ay joogtaa marka insha allah isbuuca soo socda waxay joogtaa trend line korkiisa joogtaa resistance line ay joogtaa insha allah waxaan aad u rajaynayaa inay soo dhacdo ay soo gaarto ilaa iyo laga gaarayo 108933 insha allah saas baan rajaynayaa inay soo gaarto ya sidaan abuu samayn doonaa insha allah waa siday ila tahay sidaan u badinaya insha allah ya sidaan ayuu samayn doonaa isbuuca soo socda ilaa intaas inuu soo gaari doono sidaasaan u badinaya lacagta xigta aan ka hadli doono waa pound USD idan waxay joogtaa meel aad xasaasi u ah insha allah idan waxaan rajaynayaa inay soo dhacdo inkastoo marar badan reject laga soo celceliyey trend line-ka insha allah waxaan rajaynayaa inuu suuqani soo gaari doono ilaa laga gaarayo 1.273 ilaa laga gaari doono insha allah inuu sidaa soo gaari doono sida ayaanu badin doonaa lacagta xigta aan ka hadli doono waa New Zealand USD lacagta New Zealand kiwi marka kiwi idan waxay joogtaa meel aad xasaasi u ah sidaa u jeediin meel xasaasi ayuu joogaa waxaa insha allah wuxuu soo gaari doonaa isagana maalmaha soo socda ilaa laga gaaro eber dhibic 613 insha allah ilaa meelahaas inuu soo gaari doono ayaan rajaynayaa lacagta kale aan ka hadli doono waa dahabka sidaad la socotiin dahabka bilooyinkii lasoo dhaafay oo dhan kor buu u socday dahabka kor kicitaanka wuxuu bilaabay ilaa iyo 1 October 2018 insha allah hadda waxaan rajaynaynaa inuu soo dhaco ilaa iyo maalmaha soo socdana ilaa bilooyinka soo socdana inuu soo dhaco insha allah sidaa baan rajaynaynaa wuxuu joogaa meel aad xasaasi u ah insha allah dahabka waxaan rajaynayaa isagana inuu hadda wuxuu joogaa meel oo xasaasi u joogaa insha allah wuu soo dhici doonaa wuxuu soo gaari doonaa ilaa laga gaaro 1463 ilaa laga gaaro insha allah ilaa intaas wuu soo dhici doonaa dahabka midka ugu dambeeya aan ka hadli doono waa Nasdaq waa waxaan ugu jeclahay inaan aadan ugu trade gareeyo sidaa ujeediin Nasdaq trend line-ka ayuu jibiyey waxaan rajaynayaa trend line-ka uu jibiyey inuu soo taabto
markuu soo taabtan insha allah kor uu baxo ilaa iyo uu gaari doono isbuuca soo socda ilaa iyo 79.60 meelahaas inuu gaaro ayaan rajaynayaa insha allah. asxaabta qaaliga aad baad umahadsantihiin. waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe saartaan, comment inaad ka bixisaan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.